السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي waxaan saaxiibayaal ku soo dhawaada muuqaal cusub. Haweeneyda ugu dheer adduunka ayaa gashay safarkeedii diyaaradeed ee ugu horeeyay bishii September ee sanadkan. Rumeysa Gelji ayaa gashay safar qaatay 13 saacadood iyada oo ka tagtay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga kuna sii jeeday magaalada San Francisco ee dalka Mareykanka. haweeneydan oo dhererkeedu gaaraya 7 feet oo u dhiganta 2 mitir iyo 15 sentimitir ayaa sanadkii hore loo aqoonsaday haweeneyda ugu dheer adduunka. Shirkadda Turkish Airlines ayaa mid ka mid ah diyaaradaheeda ugu habeysay haweeneydan qaab ay ugu safri karto San Francisco maadaama aysan haweeneydan ugu fariisan karin kuraasta sida dadka caadiga ah. Waxayna shirkaddan ka saartay diyaaradda 6 ka mid ah kuraastii rakaabka isla markaana ay ku bedeshay bareelo ama sariir gaar ah oo ay haweeneydan ku jiiftay intii uu socday safarka. Miss Gelji oo 25 jir ah weligeed ma ay awoodin inay ku safarto diyaarad dhererkeeda oo zaa'id ah darteed, waxaana sabab u ah dhererkeeda xad dhaafka ah xanuun ay qabto oo lagu magacaabo Weaver syndrome kaasoo sababa in lafaha qofka ay bataan isla markaana ay u koraan si xad dhaaf ah. xitaa caruurnimadeedii aad ayay u weyneyd oo uma suuragelin inay ku safarto diyaarad kumana habboonayn kuraasta diyaaradda. caadi ahaan waxay isticmaashaa kursiga curyaanta ee loo yaqaan wheelchair-ka xanuunkaas awgees. tani waxay ahayd duulimaadkayga ugu horeeyay, laakiin waxaa hubaala inuusan noqon doonin kaygii ugu dambeeyay ayay tiri. hadda wixii ka dambeeya aad ayaan u safri doonaa, waana jeclahay inaan u duulo meelo kala duwan oo adduunka ah. waxaan u mahadcelinayaa qof walba oo ku lug lahaa safarkaygii ayay sii raacisay. haweeneydan oo ah qof wax baratay ayaa ku takhasustay software engineering, waxayna qorsheynaysaa inay 6 bilood ku soo qaadato dalka Mareykanka si ay u sii horumariso aqoonteeda. sidaan wax yar ka hor soo sheegnay, haweeneydan ayaa haysata rikoorka ah gabadha ugu dheer adduunka. sidoo kale rikoorada ay haysato waxaa ka mid ah gabadha ugu gacmaha iyo faraha dhaadheer adduunka. daawadayaal muuqaalkeena maanta intaas ayuu ku egyahay. waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe, like iyo share ba nagu dhiirigeliso. mahadsanid. inta aan mawduucina xiga ku kulmi doono. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.